July 2014 ayaa kalkaalisa lagu magacaabo Solveig Uda waxaa loo keenay wiil yar oo jira 6 bilood, midkaasoo jirkiisa ka muuqday calaamado muujinaya jirdil baahsan, kuwaasoo sababay in fedhihiisa ay kasoo muuqdaan dhiig fadhiisi. Ilmaha yar ayaa wuxuu ka jabnaa 19 meelood oo fedhihiisa ka tirsan. Isbuuc ama toddobaad kadib waxaa lasoo xidhay waalidkii dhalay ilmaha, iyadoo hooyadii lasii daayay 6 beri kadib, halka aabihii sii xidhnaa muddo kale. 16 Oktoobar 2016 ayaa maxkamadda hoose Oslo dacwad soo oogtay. Dacwaddaas oo ahayd 2 dembi oo loo kala dhigay dhibka ilmaha loo geystay iyo midka ah in aan ilmaha dhakhtar la geynin. Dembigaas waxay ka qaateen racfaan iyagoo loo gudbiyey maxkamadda darajada labaad. Maxkamadda darajada labaad ayaa sheegtay inay hubaan in dhibkan ay geysteen labada waalid, laakiin ay caddayntu tahay mid sidaas aan u buurnayn oo aan wax lagu xukumi karin. Aabihii ayaa lagu soo oogay inuu ilmaha dhibka u geystay, halka hooyadii ay maxkamaddu fasaxday, laakiin waxaa labadoodaba lagu wada oogay inay ilmaha dhakhtar geyn waayeen. Labadoodaba waxaa maxkamadda darajada labaad ku xukuntay 6 bilood oo xabsi ah maadaama caddeymo buuxda loo haynin. Maxkamadda Oslo iyo maxkamadda darajada labaad waxay isku raaceen inay waalidiintan aysan xaq u lahayn mas-uuliyadda haynta ilmahan. Racfaan ayay ka qaateen, dacwaddan ayaana usii gudubtay maxkamadda sare. Maxkamadda sare ayaa go'aamisay in waalidkan uu ilmihiisa la kulmi karo sanadkii 1 mar oo saacad keliya ah, iyagoo weliba lala joogayo. Arrintan ayaa waxay dhalisay muran dadweynaha ay sheegeen inay khalad tahay in dadkan lala kulansiiyaba. aad baad u mahadsantahay Cabdilaahi, laakiin waxaad moodaa sheekada inaad haddeer dulmar baad martay sidii lagu ogaaday ilmahani, bal iyada dhinaca kale faahfaahin dheeraada siday wax u dhaceen. Sanadku markuu ahaa 2014 ayaa wiil yar oo 6 isbuuc jira laguna magacaabo Yacquub oo hooyadiis wada u yimaadeen health sister ama haweeney qaabilsan carruurta iyo hooyooyinka oo lagu magacaabo Solveig Uda, waxayna ahayd kontarool la mariyay marka ilmuhu jira 5 isbuuc. Labada dhinac ee xiga xabadka ama naasaha ayay markiiba ku aragtay calaamado muuqda oo sababay barar. Markiibana waxay weydiisay hooyadii waxa ay yihiin calaamadahan. Hooyadii oo arrinkan ka jawaabaysa ayaa waxay tiri, maba ogiba arrinkan, anigu mar horena uma arkin maxay yihiin. Gabadhii kalkaalisada ahayd markiiba wixii ayay hore usii fiirisay, iyadoo sheegtay inay markiiba niyaddeeda kusoo dhaceen hooyo kasta way arki lahayd calaamadahan, kuwaasoo ahaa kuwa si toos u muuqday. Waxay u sheegtay hooyadan oo ahayd qof dhalinyaro ah in xaaladdan tahay arrin khatar ah, waxayna u eg tahay dhiig fadhiya jirka, waa in wiilka baaritaan dheeraada loo dira ayay tiri kalkaalisadii. Kalkaalisada markiiba wicitaan ayay gashay, waxayna sheekadii u gudbisay dhakhaatiir. Aarhus oo ah isbitaal weyn, qaybtiisa ilmaha ayaa loo gudbiyey, waxaana la qaaday sawirro. Baaritaan dheeraadana waa la sameeyey. Dhakhaatiirtii waxay u soo baxday in ilmahan dhib loo geystay. Sawiradii laga qaaday ayaa waxay muujinayeen ilmuhu uu ka jaban yahay 19 meelood fedhihiisa. Yacquub maalinkaas kadib ma ku laaban gurigii waalidkiis. Baarlamaanka ama dadka qaabilsan ilmaha ayaa hooyadii iyo ilmihii u gudbiyey qaybta faamilada ee xarunta Alina og Faridenberg ee Oslo. Isbuuc kadib ilmihii keliya ayaa lasii gudbiyey oo loo gudbiyey qaybta Beredskapshjem ama guryaha la geeyo ilmaha waalidkii lagala wareegayo. Muddo kadib waxaa soo baxday baaritaankii dhakhaatiirta in ilmaha si xoog ah loo qabto iyadoo fedhihiisa la isku riixay. 7 bilood markii uu jiray Yacquub waxaa loo keenay waalid cusub oo noqday faamilkiisa cusub. Waalidkan cusub ayuuna la nool yahay ilaa hadda isagoo jira 6 sano. Waalidkan cusub oo mar ka sheekeynayay bilihii u horreeyay ee loo keenay Yacquub ayaa sheegay in argagax iyo baqdin laga dareemayay. Ilmaha ayay sheegeen habeenkii saacad kasta uu toosayay. Waalidkan hore ilmo uma dhalin, iyagoo sheegay inay ku dhibtoodeen sanadkiisii koowaad. 2016 ayuu bilaabay Yacquub meesha xanaanada carruurta. Xarunta xanaanada ilmaha ayaa sheegtay inuu kelinimo iyo iska taagnaan ay ku badnayd muddadii u horreysay. Waxaynu isleenahay ilmaha yaryar way iloobayaan waxaasoo kale, laakiin waxa aan ka baranay Yacquub in ilmuhu iloobin dhibaatada loo geysto, ayay sheegeen dadkii hayay. Waxay sheegeen inay ka muuqatay dhibaatooyin loo geystay ilmaha yar, iyagoo sheegay in uu muujiyey dhibka laakiin uusan waxba sheegi karin maadaama uu aad u yaryahay. Waalidkan haystay ilmaha ayaa lagu wareejiyey waalidnimadiisa. Yacquub waalidkiis runta ah wuxuu la kulmaa sanadkii 1 mar oo 1 saac ah. Waxay sheegeen waalidiintan cusub in mar kasta oo waalidkan ay soo booqdaan uusan Yacquub rabin inuu cid kale uu la hadlo, ayagoo sheegay inuu Yacquub markasta jecel yahay markuu dadka la kulmayo inuu annaga hoosta nagaga jiro. Waalidkan ayaa waxaa la sheegay ayagu inay dembiga geysteen, laakiin caddeemaha ilaa hadda la hayaa maaha kuwa sidaa usii buuran. Laakiin dembiga kale ee ah inay ilmaha dhakhtar geyn waayeen ayaa lagu xukumay, ayagoo la sheegay inay taas ay ku mutaysteen 6 bilood xadhiga. Wuxuu bilaabay Yacquub iskuulka, isagoo saaxiibo ku samaystay SF oo ah meesha ilmaha lagu sii hayo iskuulka kadib inta waalidku imaanayo. Arrinkan ayaa waxaa soo qoray wargeyska The Huffington Post, waxayna dhacday 6 sano ka hor, laakiin ilmihii yaraa oo xaaladiisa uu wargeysku weli rabo inuu la socdo qaabku u nool yahay iyo qaabku ku dambeyn doono. Sidaa daraaddeed ayaa waxay 6 sano kadib arrinka dib u soo bandhigeen, ayagoo ka sheekeeyay ilmihii iyo xaaladiisu hadda sida ay tahay. Halkaan nagala socoto Wasam Modern Media.